بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برنو ويديمهن كلا what is a capital gain and what is a capital loss and what is a capital gain tax. هذه أنكو هرمرنو capital gain أما فائدة رأس مالك وحانكو قيحي كرنا ومارك انتاد هانتي جذتت حدانا آد إن مدعا لهاتت kadibna aad ku iibisid lacag ka badan midii aad ku soo gadatay markii hore midaas ayaa loo yaqaanaa capital gain. Si aan u fahanno qeexidaas aan soo aragnay aan isla aragna tusaalahan aan dhahno dhul baad sanad ka hor soo gadatay oo waxaad ka bixisay 50,000 waxaadna gaday dhulkii usbuuc ka hor oo waxaad siisatay 65,000 haddii 65,000 aan ka jarno 50,000 oo ah lacagtii uu dhulka ku fadhiyay waxa inoo soo baxaysa $15,000 oo dheeraad ah. lacagtaas dheeraadka ah ama faa'iidada ah ayaa loo yaqaanaa capital gain. ogow hantida waxaa lahaan kara shakhsi ama ganacsi waxayna noqon kartaa dhul ganacsi lahaanshiye ganacsi sida share oo kaleeto iyo wixii la halmaala. muddada lahaanshiyaha hantida qiimaheedu uu sare aaday waxa uu noqon karaa short term or long term, mid muddadeedu ay gaaban tahay oo ay ka yartahay sanad ama mid muddadeedu ay ka badan tahay sanad. markana aan ka hadalno qaybta labaad oo ah capital loss. waxa ay lidi ku tahay capital gain waxaana ku qeexi karnaa hoos u dhac qiimaha hanti oo marka la isku fiiriyo qiimaha la gadayo hadda aad ayuu uga hooseeyaa midii laga soo bixiyay. si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan guri ayaad soo gadatay 2 sano ka hor oo waxaad ka soo bixisay 90,000 waxaadna gaday gurigii bil ka hor oo waxaad siisatay 70,000. haddaan 70,000 aan ka jarno 70,000 waa lacagta hadda nalaga siiyey dhulka ama guriga. haddii aan ka jarno 90,000 oo ah lacagtii uu noogu fadhiyey waxay noo soo baxaysaa -20,000 ama $20,000 oo khasaare ah. khasaarahaas ayaa waxaa loo yaqaanaa capital loss. markana aan isla fahanno qaybta u dambaysa oo ah capital gain tax. qaybtii koowaad waxaan kaga soo hadalnay qeexidii ahayd capital gain iyo tusaalaheedii. haddaba capital gain tax waxaan ku qeexi karnaa in la canshuuro faa'iidada inooga soo xarootay sara u kaca qiimaha hantidii aan gadnay. hantida sara u kaca ku imaaday waxaa lahaan kara shakhsi ama shirkad. markana waxaan rabnaa inaan ogaano sidee loo canshuurayaa faa'iidadii laga helay hantidii qiimaheedii uu sara aaday. si aan u fahanno aan mar kale dib uga hadalno tusaalaheennii koowaad oo aan kaga soo hadalnay capital gain oo haddii aan xasuusanno dhulkii markii aan gadnay waxa inooga soo xarootay faa'iido dhan $15,000. haddii aan dhahno canshuurta laga qaadayo waxa ay dhan tahay 12%. haddii 12kaas aan ka dhigno decimal oo ah 0.12 oo aan ku dhufanno 15,000 waxa inoo soo baxaysa 1,800. 1,800 ayaa loo yaqaanaa capital gain tax waxaana loo soo gaabiyaa CGT. marka macaashka ama faa'iidada laga helo hanti waxaa loo fiirinayaa ma short term ba. haddii ay tahay waxaa laga qaadayaa qofka ama shirkadda sidii dakhli shakhsi camal ayaa loo canshuurayaa. balse haddii ay muddadeedu ka badan tahay sanad ama long term ay tahay waxaa laga qaadayaa canshuur ka hooseysa midda short term capital gain. ogow nidaamka canshuurta waddan waliba isaga ayaa u madax bannaan inuu ka dhigo wixii uu arko munaasab oo ku habboon axwaasha waddanka ka jirta. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.